marka hore waxaan aad idinku mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha xafladdan qiimaha badan leh ee suugaantii abwaan guuleed yuusuf axmed oo halkan uu suugaan muglah inoogu soo bandhigay. waxaa kaloo u mahadnaqayaa mulkiilaha goobtan caawa aynu joogno saciid sheekh cumar iyo bahda gurmad oo runtii ka soo shaqeeyey iyo cid kaloo runtii xafladdan intii isku soo dabariday ee qabanqaabisay. waxaa kaloo mahadnaqii laga ilaawayso baxda saxaafadda oo runtii caawa dhan halkaa taagnaa duubayey hubinayey in ay wax walba si wanaagsan ay u dhacaan oo adduun waxa la magaca baa ka hadha halkaa wixii caawa halkaa ka dhacay dee waynu iska ilaaweynaa dadka kale inala ogaan maayeen haddii aanay saxaafaddu aanay halkan joogin. anu saddex qodob oo degdegoon baan jecelahay inaan halkan ka yar idhaahdo. mid waxa weeye abwaan guuleed sugaantiisa oon yar faallo yar ka bixiyo, afka soomaaliga iyo sugaanta oon in yar faallo yar ka bixiyo, iyo haddii waktigu inoo saamaxo in yaroo kaftan ah oo gabay yaroo kaftana iyaduna aan anigu laftarkaygu aan halkan ku yara dhigabageliyo. horta abwaan guuleed yuusuf axmed waa aragtayoo dee isma lahaa da'diisa iyo runtii sugaanta mugale halka uu soo dhigo. waana qof dhaqankiisu wanaagsan yahay iyo dabeecaddiisa iyo dadla socodkiisu. dadka qaar waxaa jira runtii sugaan yahanaa laakiin aan dadla socod lahayn ama markaa isagu waa shaksi wanaagsan oo sugaan wanaagsan leh oo dadla dhaqan leh dhaqankana haya runtii da'diisana ka weyn. waxaan ku tirin karaa odhan karaya dadka dhallinyarada ah ee sugaanta u soo kacday ee inoo bedeli doonta abwaanadii waaweynaa in uu safka hore kaga jiro ayaa runtii dad badan oo ay isla qirayaan. marka waxa weeye kulligii inaan idinkuna wada taageerto in caawa dhegaysateen waa ku mahadsantihin. shalay toole mise ayaan u malaynaya inay ahayd ayaa waxaa dhacday horta af soomaaliga waxa la yidhi wuu sii dabargo-ayaa intaa waa dadka laga nexiyaa waa la yidhahdaa laakiin weli sugaanta way nooshay sidii horeba loo sheegay oo sugaan noocan oo kale haddii dhallinyaradu ay tirinayso waa sugaan weli af soomaaligu waxa weeyaan waxbaa ku sii duugan. shalay nin aanu saaxiib nahay oo saciid boodsane la yidhaahdo ayaa wuxuu xasuusiyey berigan dhallinyarada ahayn ee magaalada hargeysa aan kusoo koraynay ayaa waxaa jiri jiray nin la yidhaahdo ilaahay naxariis jannada ka waraabiye aqoon-yahan weyn ah oo la odhan jiray aadan daraawiish maanaan lahayn maxay ahayday inaan meel maxfadoolan isugu nimaadno laakiin maqaaxyo halkaa hargeysa gudaheeda ku taalo maqaaxyada ina garow ninkii garanaya ayuu habeenkii lagjar looga jeedin jiray. ninkaas wuxuu ahaa nin dhallinyaradii sheekh laga diray ingiriiska wax ku soo bartay. marka sugaanta iyo soomaalida iyo dhaqanka iyo sayniska iyo xisaabka wax walba wuu noo dhigi jiray oo habeenkii lagjar ayuu halkaa ka bixin jiray. habeenkaad maqan tahay wuxuu ku odhanayaa war beeshii caawa lagjar weyn baad ka maqnay. ninkaas haddaba waxa dhacday wax aan weli uu shalay xasuusiyey saciid boodsane uu xasuusiyey hal shay oo aan u malaynayo weli inuu ka maqan yahay afka soomaaliga oo ninkaasi berigaan loo sheegay malaha waaba dee beri hore ayay ahayd. wuxuu yidhi inagoo marka tacliintan aynu baranayno waxaan inanka secondarygii buu ka baxay, haddana waxa la bachelor buu qaatay, haddana waxa la masterate buu qaatay, haddana waxa la ninka professional degree buu qaatay, haddana waxa la PhD buu qaatay. soo maaha ninkaasi af soomaaligu berigaa u sameeyey erayadaas oo dhan erayadii buu shalay xasuusiyey ninkii saciid. wuxuu yidhi ninka secondaryga ka baxa marka isagoo adeegsanaya sugaantii soomaalida wuxuu yidhi ninka secondaryga ka baxa waxaynu odhanaynaa buuri gorofle ayaynu odhanaynaa buuri. ka bachelarka qaatana haanle baynu odhanaynaa haanle hade haantii baa ka yaro weyn gorofkii. ka masterska qaatana waxaynu odhanaynaa buuri saable. ka professional degreega qaatana masafle ayaan odhanaynaa buuri. haddaba kii PhD dana waxaan odhanaynaa buuri aagaamo jiite. wax allaaliya wixii guriga yaalay oo dhan buu dee jiidanayaa aagaamo jiite.
ayaa odhanaya ninka PhD-ga haysta buuri horta waxaan u malanayaa weli af soomaaliga dee qolay cabdallaabe aadu iyo halkan abwaan axmed awgeedi halkan isnabayna waa joogeen in runtii dib loo eego digriigan aynu qaadanayno aynu marna secondary buu qaatay wallahi anu bachelor baan haystaa wallahi double masterate baan haystaa war waxa aynu isticmaalo dee dhaqankeena ahaa ee aynu naqaanay ya ninka PhD-da haysana agaama jiitaan midhaan waa iska horayna baan malanaya intaasna haddaba hadalkayga aan idinku dheeraynayn ayaa waxaan aan doonayaa inaan anna idinku soo khatimo gabay kaftana berigii hore gabaygana waxa weeyaan mid beri hore aan tiriyey waana kaftan oono ma aha wax serious waa gabay xayar ama gabay dheeg allah u naxariistay ninkii la odhan jiray abwaanka ahaa Ismaaciil Mire ayaa berigii daraawiishta diyaaradaha lagu kiciyey ayuu geeliina dhiciddiisii badatay ayuu ari iska dhaqday arigii baa markii dambe xilloor meel burcan la yidhahda baa la geeyaayo xoolaha oo lagu iibiya seelad ku taalo halkaasaa sonkor iyo bariis iyo lagu soo bedesha sidii buu yeelo markaa islaan jaarkiisa ah oo u dhoweyn ayaa u dhiibatay xoogaa neefaha oo markaasuu burca geeyo adigu markii wixii uu kala kulmay sayladii burco ila weligii muu arag saylada ayuu gabay ka tiri markii soo noqday islaantii tiri bal dayna xisaabtii wixii markuu ku wareeray daba gabaygaas aniguna beri bedelay oo berigan anigu igu horeysay dalka ku soo noqday 1997kii 97 baan halka ku soo noqday airportka Hargeysa daymanka oo imika airportka fiican ee caalamiga ah laakiin beriga wala saddex yaacayo sida saylada burco ugu wareeray wadaadku baana ugu wareeray beriga markaas aniguna gabaygiisi xayirayo aan bedelo aniguna xaaladaydii gabay Hargeysa ka soo degay oo shadadahaygii waxa iga la boobay oo aan iska wareeray ayaana xaaladaydii ku soo duulay marka isagu wuxuu oranayaa kii hore yaro tusaya Ismaaciil Mire si aad u fahantaan ka dambe isagu wuxuu niman yahow awooyo abkaan sheegto anigu abidkay ma arag iibisa lacag abti wax lacag la ma arag adduun baan lahaan jiray ragga ka israa waaye ololahan wax kaga qaybsan jiray ululuf duulaan marun baan amaamid waxaan aabahay falinay afar baan u sii dhahay tuuladii awrta loo raray albaabkii burcaan tagaano aaladii wadee aminkii la yimi sidii eegalay sugay ogtii hore inagu kacin arigilaalkii dar iimaanka laga qaaday ee ilaahaayeen ama kaaga goortii wankii adhaxay tuujay ya waa gabay wuxuu ahaa runtii gabaygaas uu halkaas horta isagu mariyo uu isagu ka hadlay aniguna markaas ana kaygii de xayirayo ana waxaan idhi niman yahow ayaan amankii aan dhoof arligii dalkeeniyo ma arag aqalkii oodnaay adduun baan lahaa soo tabciyo ugu tacliineed olole xoolsiyo baan ku jiray ululuf gaaleede marun baan amaamiday inaan safar aloosacay afar baan airline kusii dhaxay agabkii reeraaye airportkii Hargeysan ka degay airline samarkii aminkii la yimi sidii eegalay sugayay ogtii hore laygu yiri keen alaab culus qaar noor shaxaad eegayay ila ahaayeen ama kaagay goortay sarafkiiga ilaabeen inta iyo ma hadii la islaaqay asraartankii baa qalbiga aad u xidheen itaal daru shandadii heshay inaan kii roonaay afka reer Hargeysuhu yaqaan waa ka oodnahay intaasoo saraf iyo cashuure igu aluubeen anigoo arkayay rasiid ugu abaareen ana halkaasaan ka galay oo berigaas iska kaftan buu ahay oo gabay dheer buu ahay horta waxaan ku soo gabagabeynayaa oo leeyahay horta runtii caawa xaflad qurux badan baa halka ka dhacday waana loo baahan yahay dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo suugaanta iyo akhriska iyo qoraalka wax loo baahan yahay markuu qofku akhristo wacan noqdo oo in badan akhriyo ayuu marka dambana noqonayaa qoraal wanaagsan oo wax qora oo wax qofka akhriskuna wuxuu koreeyaa maskaxdiisu koreeyaa marka akhrisku maaha inaad buugaag af Ingiriisi akhriyay akhriska dhaqankaagii Soomaaliyeed ayaad akhriyi karaysaa akhriska maaragtay waxaad akhriyi karaysaa buugaagta sheekooyinka buugaagta suugaanta gabayada oo dhuuxi karaysaa Soomaaliga waxa laga yaabaa in dadkiinu inaadan mii tegin anigu de berigan yareen mii fasax walba mii baan la geyn jiray laakiin daymanka dhalinyarada iminka mii lama geeyo marka waxaad ku baran karaysaan afka Soomaaliga idinkoos gabayada iyo suugaanta iyo dhuuxa oo xiiseeya maskaxdiina way kobcinayaan waxaanay kobcinayaan
afkiina hooyo ayay kobcinayaan waxaan ku soo gabagabeynaya oo leeyahay guuleed hambalyaan leenahay halkaa waa guuleed aad ka wadid halkaa ka wad sugaan mug leh oo aanad cidna ugu habaran sida lagu yaqaanay ayaad soo daynaysaa waanu dhegaysanaynaa waanu hufaynaa waxna waa laga baranayaa taariikhna way noqonaysaa ilaahayna waxaan uga barayaa abwaaniinteena waaweyn ee xanuunsanaysa sida laynoo sheegay abwaan hadraawi ugu horeeyo iyo xasan ganayo iyo inoo iman kari waayey aadan tarabi iyagana ilaahay caafimaad ha siiyaan leeyahay kulligiina waa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu